dhammaantiin waan idin salaamay. Arsenal waxay soo gaartay mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee xilli ciyaareedkan 2024-2025 waxay ku soo badisay 5 gool taas oo kaga soo adkaatay kooxda Crystal Palace ee garoonkeeda ku martigelisay. Arsenal bilowga ciyaarta 6 daqiiqo ugu horeysay Jesus ayaa bilaabay, hase ahaatee 11 daqiiqo markay mareysay waa laga badeejiyay. Isla Jesus ayaa ku daray oo 2-1 ka dhigay ciyaarta, hase ahaatee isla half-time-kii hore 38 daqiiqo Havertz ayaa ku daray taas oo 3-1 ka yeeshay. hase ahaatee Martinelli ayaa half-time-kii dambe ku daray daqiiqadii 60aad. Declan Rice ayaa 84 raacsaday. sidaas Arsenal waxa ay ku leedahay 33 dhibcood, kaalinta saddexaadna waa ay joogtaa. haddaba Arsenal sida ay u muuqato aad ayay u dadaalaysaa, waxaana moodaa foomkeedii inuu soo laabanayo sanadana inay Liverpool Premier League yac ka dhigi karto ayaa loo arkaa. Crystal Palace 2 kulan oo isku xigta ayaa laga badinayaa. Carabao Cup-kii oo laga soo reebay oo 3-2 looga soo reebay, iyo kulankan oo 5 gool aan ka hal madaxa laga soo geliyay. Gabriel Jesus ayaa man of the match qaatay, kaasoo 2 gool dhaliyay. ku darso labadan game ee isku xigta ee Crystal Palace ay ka hor imaadeen. Gabriel Jesus waxa uu dhaliyay 5 gool, kii horena hat-trick ayuu ka dhaliyay ay kooxda ku soo baxday, kana waxa uu ka dhaliyay 2 gool. haddaba hambalyo reer Arsenal, waxaad gaarteen gool cajiib ah. dhammaantiin waa mahadsantiin. muuqaalkaygan hadduu ku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad bilashow ku soo biirto oo ka mid noqoto baaweynta aan halkan ku saaxiibnay.